halkaasuu ku buray waa yani waxweeyaan la xumaan la isku fiiwaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka iidsan kulligood waa ku amaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku amaanan yihiin dhammaantiin waa idinku mahadinayaa sida xilkasnimada leh iyo biseelka siyaasadeed aad u maamusheen. mooshinkaas wuxuu noqday 19 waxaa ka dhiman hal saa daraadeed waa mooshin jabay. waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhinnaa inay ku soo darsadaan. waxaan ogolnahay oo ogolaaday in maarta mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tilaabadii habbooneed si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo. laga bilaabo maanta 29 bisha Maarso waxaan dib ugu soo noqday hogaankii guddoonka golaha shacabka ayaan rasmi ahaan ugu soo noqday. saa daraadeed laga bilaabo sabtidana waxaan bilaabaynaa howlaheena caadiga ah. waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada inay ogolaadaan ku dhaqanka sharcigaas iyo soo jeedintaas xildhibaanada badan ay soo jeediyeen. barlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaaraha waa qof fiican waa shaqo yaqaan waa yani markuu talada barlamaanka qaatana waa shaqooyin fiican buu gudbiyaa. waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo si marata arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloon marata arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in marata arrinta sida xikmadda leh uu soo jeediyey. madaxweynaha shir berita la qabanayo oo la soo fasaxay inuu isaga soo fasaxay oo fowdadii iyo rabshadii iyo qalalaasihii meeshii laga sii wada inuu soo fasaxay baa cad. saa daraadeed waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynayaa in arrintaasi wixii cawaaqib ah ka yimaado ama dhibaato ka timaado ama dhibkii dhaca wax annaga aan mas'uul ka nahay ma aha.